Silva saw Chilwell, but so did Walker. Kai Havertz, who is around Ederson, and Havertz scores for Chelsea. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xalay markii labaad ku guuleysatay koobka Champions League kadib markii si dirqi ah ugu adkaatay kooxda Manchester City ay iskala dhisay yihiin dalka Ingiriiska. garoonka Stadio di Drogba ee magaalada Porto ee dalka Portugal qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa lagu kala nastay hal iyo eber oo hoggaanka u qabatay kooxda Chelsea kadib markii ciyaaryahanka 22 jirka ee u dhashay dalka Jarmalka ee magaalada Aachen uu dhaliyay gool qurux badan Kai Havertz kadib markii uu caawiyay saaxiibkiisii Mousan. qaybtii labaad ciyaarta ayaa lagu kala nastay qaybtii labaad ciyaarta kadib markii la isku soo laabtay ayay Manchester City iyo Chelsea ba qaab ciyaartoodii wax ka bedeleen. kooxda Manchester City ayaa isku dayo badan oo ay sameysay si ay barbardhac iyo guul ugu gaartaba ayna u suurtagelin. ciyaarta ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaatay hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Manchester Chelsea sidaasina ay ku hanatay koobka Champions League sanadkii labaad markii labaad ay ku guuleysato. markii koowaad ay guuleysato kooxda Chelsea waxay ahayd sanadkii 2012 halka sanadkan oo ah 2021 ay ku guuleysatay ciyaaryahankii guusha ay ku raacday dhaliya ayaa u dhashay dalka Jarmalka magaalada Aachen. ciyaaryahankan ayaa dhashay 1999 waxaana sidoo u soo ciyaaray kooxda Bayer Leverkusen ilaa iyo 2000 kadibna waxa uu ku soo biiray 2020 kooxda Chelsea. ciyaaryahankan Kai Havertz ayaa ciyaaryahan aad u yar oo mustaqbal fiican leh. waxaad ka dhageysanaysaan aad ka daawanaysaan dulqaad media show waa barnaamijkii ciyaarahaba waa anigoo wariye Cabdinaasir Maxamuud Axmed Cabdinaasir Qujufa. dulqaad media show wariye madax bannaan local and international freelance journalist and photographer. dulqaad media show intaan ku kulmi doono barnaamij lamida barnaamijka ciyaaraha sidaas ay nabadiino meel walba joogtaan iyo waqti walba idin tahayba.